subax wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo noqod wanaagsan aniga iyo koobkaygii kafeega. Waa dhakhtarkii lafaha isbitaalka Horseed Dr. Said Cumar. Waxaan rabaa xasuusinta bulshada ka sokow inaan shalay shaqadii kusoo noqday inaan wacyigelinta koowaad ee aan jeedinayo aan ku bilaabo safarka. Dad badan ayaa marka ay safraan, especially safarada dhaadheer, ama bas ha ahaado ama tareen ha ahaado ama ha ahaado diyaarad saacada la saarnaanayo, waxaa ku dhaco barar lugaha ah. Aniga nafsadeeda ugu dhacay maadaama dhowr safar oo isku xigto aan 3 maalin lasoo dhaafo aan galay. Marka bararkaas ka hortagna waa leeyahay. Haddii ay dhacdana waxaa muhiim ah dadka qaar isha inay ku hayaan ay muhiim tahay. Tusaale waxaa looga hortagi karaa qofka haddii uu safarkiisa dheer yahay, hadduu fursad u helayo inuu socdo, inuu dhaqdhaqaaq sameeyo, inuu anqawgiisa jimicsi noocaas ka sameeyo, iyo in haddii lugaha meel uu saarto uu helayo uu lugaha meel uu saarto. Waxyaabahaas wax la sameyn kara waay. Mid kaleeto oo muhiim ah waxay tahay dadka qaarna ay aad ugu fiican tahay in la xirto sigsaan. Sigsaantaas waxaa loo yaqaanaa compression stocking. Compression stocking-ka waxay saacidaysaa noqodkii dhiigga. Xididada lugaheena gaar ahaan kuwa dhiigga soo celiya waxay u samaysan yihiin dhiigga marka xoogaa socdaba waxaa celinayo waxa loo yaqaano valve derbigaas wuxuu ka hortagaya inuu dhiiggii soo noqdo. Dadka marka istaaga badan sameeya sida timajarayaasha, askarta, beauty salonada dadka shaqeeya, dhakhaatiirta qalliinka, dadkaas waxay u nugul yihiin ama safarada xataa tirada badan iyo safarada dhaadheer in veinkii valvihii ku jiray uu daalo, incompetent uu noqdo. Taas waxay sababaya marka inuu meeshii bararto, dhiiggii uu meesha uu ku aruuro, gadaal dambe cudur isku bedelay la yaqaano varicose veins. Marka socod la'aanta waxa ugu muhiimsan ee ama sigsaantii loo xiranayo ama dhaqdhaqaaqa loo sameynayo ama kor loogu qaadayo waxa ay tahay waxaa laga cabsanaa in meeshii maadaama dhiiggii uusan soconin, uusan dhaqaaqin oo caafimaadka waxa loo yaqaano stasis ay dhacday, iyo meeshii ay u nuglaato waxa loo yaqaano deep venous thrombosis. Marka ardada caafimaadka iyo bahda caafimaadka waa yaqaanaan. Bukaanaa soo safray kadib lugaha bararay ayaan kadib waxa ku dhacay waxa loo yaqaano pulmonary embolism ama DVT. Inkastoo ay rare tahay haddana dhibaato dhici karta waay. Sidaa daraadeed wacyigelinteedu waxay ku saabsan tahay haddii aad safraysid safarkaaga dheer yahay, waxyaabaha ku caawi kara waxaa ka mid ah compression stocking-ka iyo talooyinka kale oo aan sheegay. Haddii intii aad soo safartay barar hal lug ka jira ama xitaa labada lugood ka jira, ku welweliye aad qabtid, way fiicnaan lahayd